labaatanka bishii Diseembar ee 2020 ayaa si rasmi ah waxaa loo daafuray tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyadoo kulanka ugu horeeyay uu ahaa kulan dhex maray Galmudug iyo Banaadir kulankaasi oo ku soo ilaaday barbaro 2 gool iyo 2 gool ah tartanka oo sanadkan ka xiiso badnaa kuwii ka horeeyay ayaa waxaa guruubyada ku haray xulka Hirshabelle iyo Jubbaland iyadoo afardhamaadkan ay u soo gudbeen Galmudug, Banaadir, Puntland iyo Koonfur Galbeed waxaana isla ciyaaray Galmudug iyo Puntland, Koonfur Galbeed iyo Banaadir iyadoo kama dambeystaan isla tageen gobolka Banaadir iyo Galmudug gegida kubadda cagta ee Engineer Yarisow waxaa soo buux dhaafiyay taageerayaal u kala sacbatumay xulka ciyaaraya ee Galmudug iyo Banaadir inta uu socday tartanka waxaa taageerayaashu ay u imaan jireen garoonka si joogto ah balse finaalka oo ka xamaasad badnaa darteed garoonka waxaa soo buux dhaafiyay taageerayaal ka kala yimid 17 degmo ee gobolka Banaadir isla markaana kala taageerayay labada xul ee Banaadir iyo Galmudug iyadoo saqafyada guryaha laga daawanayay ciyaarta labada xul ayaa soo bandhigay ciyaar aad u xiiso badnayd oo ay ku qanceen dhammaan dadkii u soo daawasho tagay garoonka oo ahaa mid aad loo soo camiray daqiiqadii koowaad ee ciyaarta ay xulka Banaadir waxa ay heshay goolkeedii koowaad iyadoo uu dhaliyay xidiga nambarka 11 ee Nageeye Deeq balse daqiiqadii 15 Galmudug ayaa heshay goolka barbardhaca iyadoo uu dhaliyay kabtanka xulka Galmudug ciyaarta oo ahayd weerar iyo weerar celis ayaa waxaa labada dhinac ay soo bandhigeen ciyaar wanaag waxaana qaybtii hore lagu kala nastay barbaro gool iyo gool ah qaybta labaad ee ciyaarta oo si dardar leh ku bilaabatay ayaa daqiiqadii 52 ee ciyaarta waxa xulka gobolka Banaadir ay heshay goolkeedii labaad waxaana mar kale shabaqa gaaray xidiga 11 ee Deeq Nageeye goolkaasi oo ahaa goolkii labaad ee Deeq Nageeye iyo kii labaad ee xulka Banaadir waxaana uu ciyaarta ka dhigay 2 gool iyo gool daqiiqadii 75 ee ciyaarta Banaadir oo quusa kartay ciyaarta ayaa waxaa gool kulaad ka qasaariyay xidiga u xirta lambarka 28 ee Ibrahim Ilyas daqiiqadii 86 ee ciyaarta xulka Galmudug ayaa heshay goolkii barbardhaca waxaana u dhaliyay Muxyidiin Jamaal oo u xirta lambarka 15 iyadoo ciyaartan ay noqotay 2 gool iyo 2 gool ciyaarta ayaa lagu kala baxay gool kulaadyo labada dhinac loo dhigay oo min 5 ah balse xidigaha xulka Galmudug ayaa iska qasaariyay 3 gool kulaad ee ugu horeysay waxaana xidigaha xulka Banaadir ay wada dhaliyeen 3 gool kulaad sidaas ayayna koobka ku hanteen iyadoo markii uu dhashay goolkii ugu dambeeyay ahna kii saddexaad ee Banaadir koobka ku qaaday uu guud ahaanba isbedelay gegida kubadda cagta ee Engineer Yarisow goolhayaha xulka gobolka Banaadir ayaa u suurtageliyay in ay Banaadir sanadkan hananto tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo Muqdisho ay martigelinaysay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambaliyay ciyaartoyda xulka gobolka Banaadir guusha ay ka gaareen ciyaartii kama dambaysta ahayd ay la dheeleen dhigooda Galmudug isagoona sidoo kale bogaadiyay xidigaha Galmudug ee ku dhameystay kaalinta labaad ee ciyaarta runtii waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo gobolka Banaadir sida habsamida leh ay u galeen kaalinta koowaad oo ay runtii u muujiyeen ciyaar aad iyo aad u wanaagsan oo quality-geeda iyo tayadeeda aad u sareyso waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo kaalinta labaad Galmudug sida wanaagsan oo nadaafada leh oo runtii nadiifka ah ay u ciyaartay xirfada badan ay ku jirto iyo guud ahaan ciyaartooyda ka kala yimid dowlad goboleedyada sida wanaagsan ee runtii u ciyaareen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada qalabka sida iyaguna sida ay u ilaaliyeen amniga iyo ammaanka magaalada si xasilooni ku jirtana ciyaarta u dhacday waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacab weynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan khaasatan gobolka Banaadir sida ay isugu soo baxeen ay u camireen garoonka Engineer Yarisow tani waxa weeye waa astaan waa calaamad inay magaaladu ay degan tahay magaaladu inay amni leedahay bulshadu inay dhex gashay sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa hambalyo u diray ciyaartoyda iyo dhammaan taageerayaasha naadiga gobolka Banaadir oo ku guuleystay koobka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xusay ciyaartoyda xulka Banaadir in ay muujiyeen ciyaar wanaag iyo xirfad waxaana uu yiri waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo tababarihii kooxda gobolka Banaadir iyo goolhayihii kooxdaas anigoo guud ahaan uga mahad celinaya dadaalkii ay la yimaadeen kooxda oo dhan gaar ahaan labadaas shakhsi oo ah goolhayaha kooxda iyo tababaraha kooxda oo runtii
kaalintoodu ay ka dhex muuqatay garoonka kubadda cagta. Waxaan leeyahay hambalyo sanadkan kiisa xiga ku gaara nabad bashbash iyo barwaaqo. aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynaynaa ugu feestaynaynaa guusha aad soo hoyseen haddii aan nahay reer Banaadir. Cabdiqaadir Maxamed